filimku wuxuu ku bilaabmaa nin la yiraahdo Tom oo ka soo toosaya gaarigiisa RV ee la dhigay meel fog oo kayn godoon ah dhexdeeda ah. Wuxuu halkan u yimid safar tamashlayn ah isaga iyo gabadhiisa Mira. Gabadhu waxay weli ku hurdaa sariirta yar ee agtiisa taal. Dibadda waxaa ka bilaabmay roob. Tomna wuxuu dib ugu laabanayaa hurdada isagoo maqlaya dhawaaqa tartiibta ah ee joogtada ah ee dhibicda roobka ee ku dhacaysa saqafka sare ee RV-ga. Markii uu Tom indhaha mar kale furay, argagax ayaa qabtay. Mira waa ay maqan tahay, sariirteediina waa madhan tahay. Wadnaha ayaa ku dhawaad ka soo baxaya xabadkiisa. isla markiiba wuxuu ka boodayaa RV-ga wuxuuna bilaabayaa inuu meel kasta ka raadiyo isagoo magaceeda ugu yeeraya laakiin ma jiro wax jawaab ah. Waxay u muuqataa sidii in dhulku dilaacay oo uu liqay gabadha. Si kedis ah, haweeney ayaa soo baxaysa iyadoo cararaysa iyadoo naxsan, neeftu ku dhowdahay kuna qaylinaysa inuu ordo. Tom ma fahmayo waxba wuxuuna isku dayayaa inuu weydiiyo, laakiin ka hor inta uusan kelmad dhiibin, koox dad ah oo waalan ayaa weeraraya iyagoo qaniinaya oo u gudbinaya caabuq qariib ah. Tom oo naxsan ayaa isku dayaya inuu caawiyo haweeneyda qariibka ah, laakiin nasiib darro waxay u tahay goor dambe. Isaga oo indhihiisa ku arkaya haweeneydii waxay isu beddelaysaa zombie. Hadda makhluuqaadkan la midka ah ayaa eryanaya Tom. Wuxuu ku qasban yahay inuu istifaaco iyadoo fowdadan oo dhan ay jirto. Waxaa soo baxaysa Mira. Gabadha yar waxay taagan tahay iyadoo argagaxsan iyadoo daawanaysa aabaheed oo la dagaalamaya bahalada. Tom ayaa ku qaylinaya isagoo u sheegaya inay ordodo. Mira waxay u cararaysaa gudaha kaynta halka aabaheed uu ku dhibtoonayo inuu iska caabiyo weerarka zombiyada. Ugu dambayntii wuxuu ku guulaysanayaa inuu mar kale gaaro RV-giisii oo uu fuulo saqafka sare. Xagga sare Tom wuxuu hoos u eegayaa isagoo arkaya muuqaal naxdin leh. Koox dhan oo dad caabuqsan ah ayaa dhinac kasta ka hareereeyay iyadoo ay ka goon tahay inay u soo galaan si kasta ha ahaatee. Dhacdooyinka waxay dib noogu celinayaan dhowr maalmood ka hor. Tom wuxuu gurigiisa horteeda ku hagaajinayay RV-giisa halka Mira ay hooyadeed Naomi kala hadlaysay safarkeeda xerada tababarka. Waxay si han weyn ugu sheegaysaa inay u baahan tahay inay ururiso inta hartay ee ubaxyada loo baahan yahay si ay u hesho calaamadeeda. Tom ayaa soo dhexgalaya isagoo ka cabanaya inuu lacag bixinayo xero carruurta baraysa waxyaabo aan micno lahayn. Wuxuu leeyahay waqtigii uu yaraa ee tababarka waxay baran jireen waxyaabo dhab ahaan faa'iido leh sida dabka loo bilaabo iyo sida loo diro fariimaha Morse code. Tom ayaa ku maaday isagoo weydiinaya sida ururinta ubaxyadu ay qof uga caawin karto inuu kayn ku dhex noolaado. Mira waxay ugu jawaabaysaa inaysan wax niyad ah u hayn inay kayn ku dhex lunto si kasta ha ahaatee. Isna wuxuu ugu jawaabayaa si jees ah isagoo u sheegaya intaasi macnaheedu yahay inaysan ahayn qof tababar qaate ah haba yaraatee. Kelmadaas ayaa si weyn u dhaawacday. Mira ayaa si xanaaq leh u diiday waxayna gashay qolkeeda iyadoo albaabka gadaasheeda ku soo xirtay. Naomi oo ka caraysan ninkeeda ayaa ka daba tagaysa gabadheeda si ay u qaboojiso. Habeenkii Tom ayaa raaligelin siinaya xaaskiisa isagoo qiraya inaysan ahayn inuu Mira kula hadlo qaabkaas markii ugu horeysayba. Naomi waxay xusuusinaysaa in gabadhoodu ay weynaanayso oo ay isbeddelayso waxayna kula talinaysaa inuu waqti badan la qaato. Tom wuxuu soo jeedinayaa inuu Mira geeyo shineemada laakiin Naomi ayaa madaxa ruuxday iyadoo diidmo muujinaysa waxayna u sheegaysaa inay tahay inuu geeyo tamashlayn dhammaadka toddobaadka. Markii hore Tom waa uu diiday maadaama uu qorshaystay inuu la kulmo asxaabtiisa laakiin Naomi ayaa ku adkaysatay iyadoo uga digaysa haddii uusan hadda waqti u samayn Mira inaysan iyaduna waqti u samayn doonin isaga hadda kadib. Isagoo arkaya inaysan ka tanaasulayn ayuu si cagajiid ah u ogolaaday inuu dhammaadka toddobaadka la qaato gabadhiisa. Subaxdii dambe aabaha iyo gabadha ayaa jidka ku dhacay. Isla waqtigaas raadiyaha ayaa laga baahinayaa warka ku saabsan hirar weeraro rabshado wata oo aan la sharxi karin oo lagu hayo saraakiisha booliiska ee gobolka oo dhan. Jidka dhexdiisa Tom wuxuu isku dayayaa inuu bilaabo sheeko laakiin Mira gebi ahaanba way iska indhatiraysaa iyadoo indhaheedu ku dhagan yihiin taleefankeeda. Isla markii ay xeradii gaareen Tom wuxuu diyaarinayaa wax kasta si uu joogistooda uga dhigo mid raaxo leh. Wuxuu soo jeedinayaa inay u baxaan socod ama jilaabasho laakiin Mira oo weli eegaysa shaashadeeda waxay leedahay ma hayso niyad waxayna doorbidaysaa inay taleefankeeda ku ciyaarto intay dabiicadda sahmin lahayd. In yar kadib waxay ugu dambayntii go'aansadeen inay socod ku maraan kaynta. Tom wuxuu rajaynayaa in waqtigan la wada qaadanayo uu ka caawin doono inay mar kale isku dhawaadaan. Laakiin qiyaastii saacad kadib Mira waxay leedahay way daashay waxayna rabtaa inay guriga aado iyadoo qiraysa inaysan jeclayn inay waqti la qaadato isaga. Si fudud uma adkaysan karto isaga. Mira waxay ka codsanaysaa inuu guriga geeyo si uu u gaaro xafladii uu damacsanaa inuu aado. Tom wuxuu isku dayayaa inuu ku qanciyo inuu dhab ahaan rabay inuu la joogo iyada laakiin waxay ku eedaynaysaa inuu been sheegayo. Ugu dambayntii Tom wuxuu soo jeedinayaa heshiis. Waxay joogayaan hal habeen xerada haddii ay subaxdii soo toosto iyadoo weli rabta inay baxdo markaas way aadi doonaan. Mira waxay ku ogolaanaysaa si aan qanciso ahayn waxayna sii wadaan socodka kaynta. Tartiib Mira waxay bilaabaysaa inay muujiso xiise dhab ah oo ay u hayso dabiicadda hareeraheeda ah. Si kedis ah waxay ka raaligelinaysaa inaysan u dhalan wiil ahaan sidii uu rabay iyadoo leh tani waa sababta aysan waxba uga dhexaynin. Tom ayaa u xaqiijinaya inaysan taasi run ahayn laakiin ka hor inta uusan hadalka dhammaystirin haweeney ayaa soo baxaysa waxayna ku martiqaadaysaa inay ku biiraan kooxdeeda ag fadhida dabka. Tom iyo Mira waxay raacayaan iyaga waxayna ku biirayaan dadka kale ee tamashlaynaya ee dhammaadka toddobaadka ku qaadanaya banaanka. Gabadhu waxay bilaabaysaa inay la hadasho carruurta kale iyadoo si cad ugu dambayntii u bilaabaysa inay ku raaxaysato safarka. Habeenkii waxay ku noqonayaan RV-giisii. Tom wuxuu akhrinayaa buug si uu waqtiga u dhaafiyo halka Mira ay dib ugu laabanayso taleefankeeda. Waxaa bilaabmaya roob. Gabadhuna waxay weydiinaysaa diinka yar ee ay ka heshay geed hoostiisa markii ay soo laabanayeen iyadoo la yaaban haddii uu fiicnaan doono. Tom ayaa u qaboojinaya isagoo leh diinku wuxuu jecel yahay biyaha. Kadib iyadoo aan laga filayn Mira waxay qiraysaa inay jeceshahay wiilashii ay kula hadashay dabka agtiisa laakiin ma hubo inuu isna jecel yahay. Tom oo la yaaban daacadnimada gabadhiisa ayaa u sheegaya haddii wiilku uusan jeclayn inuusan u qalmin iyada mana aha inay ilbiriqsi kale ku luminayso ka fikirkiisa.
in yar kadib Tom wuxuu u baxayaa dibadda si uu u hubiyo in RV-gu uu si ammaan ah u xiran yahay oo uusan roob soo gelayn, kadibna wuu seexanayaa. waxaynu ku laabanaynaa wakhtiga hadda ah iyadoo zombiyadu ay dhinac kasta ka hareereeyeen RV-ga. Tom wuxuu si dirqi ah ugu guulaysanayaa inuu dib ugu fuulo saqafka sare isagoo si quus ah ugu qaylinaya magaca gabadhiisa. isagoo argagaxsan wuxuu u gurguuranayaa xagga dambe ee RV-ga wuxuuna ku rarayaa qorigiisa. kadibna kor ayuu u kacayaa wuxuuna bilaabayaa inuu toogto dadka caabuqsan isagoo dhulka dhigaya dhowr zombi, laakiin rasaastii ayaa si degdeg ah uga dhammaanaysa. Tom wuxuu isku dayayaa inuu dib ugu galo gudaha RV-ga wuxuuna ku dhawaaday inuu ku guulaysto xiritaanka albaabka ilaa uu zombi gacantiisa soo geliyey. isagoo aan hayn xal kale wuxuu qabanayaa mindi wuxuuna goynayaa gacantii bahalka. kadib Tom wuxuu gacmaha iyo lugaha ku duubayaa tuwaalo. tani waa jidkiisa keliya ee uu isaga difaaci karo qaniinyada. kadib wuxuu hoos u tuurayaa salaan ka soo laadlaada RV-ga si uu u mashquuliyo zombiyada wuxuuna si xawaare sare ah ugu ordayaa gaarigiisii qalan ahaa isagoo isku dayaya iskuday quus ah. Tom wuxuu u ordayaa dhankiisa laakiin zombiyada ayaa ka soo xiraya jiho kasta. isagoo dadaal weyn bixinaya Tom ayaa iska caabinaya iyaga wuxuuna ugu dambayntii gaarayaa gaarigiisii. wuxuu u boodayaa gudaha wuxuuna isku dayayaa inuu kiciyo mishiinka laakiin wuu diidayaa inuu kaco. isagoo ka xanaaqsan wuxuu soo qabanayaa qoriga baaruudda ah ee gaariga dhex yaal wuxuuna dhulka dhigayaa dhowr zombi oo kale isagoo isticmaalaya salaankii. Tom wuxuu dib ugu fuulayaa saqafka sare ee RV-ga. dadka caabuqsan waxay isku dayayaan inay ka daba fuulaan laakiin wuu iska riixayaa wuxuuna dhulka ku tuurayaa salaankii si aan qof kale kor ugu soo bixi karin. walwalka uu u qabo gabadhiisa ayaa gebi ahaanba cunaya. Tom wuxuu soo qabanayaa taleefankiisa wuxuuna isku dayayaa inuu waco Mira laakiin taleefankeedu wuxuu ku jiraa gudaha RV-ga. wuu dhacayaa laakiin ma gaari karo. dhawaqa taleefanka dhacaya ayaa sii kordhinaya quusashadiisa. habeenkii ayaa dalkii ku dhacay daal dartiis Tom wuxuu ku dhacay hurdo. wuxuu ku riyoonayaa Mira iyo isaga oo ku hurda xidigaha hoostooda iyagoo baranaya sida loogu dhex mushaaxo iyadoo la isticmaalayo. si kedis ah zombiyada ayaa dafaya Mira wuxuuna soo toosayaa isagoo argagaxsan. markii uu waagu baryay Tom wuxuu soo qabanayaa qalabka aragga fog wuxuuna baarayay aaga isagoo rajaynaya inuu arko gabadhiisa laakiin ma jiro wax calaamad ah oo iyada ku saabsan. isagoo ka xanaaqsan wuxuu eegayaa khariidada halka zombiyadu ay si joogto ah isugu dayayaan inay u soo galaan RV-ga. wuxuu daarayaa raadiyaha wuxuuna maqlayaa warar naxdin leh. meesha uu ka soo jeedo caabuqu weli lama yaqaan, dawooyinkuna ma laha wax saamayn ah. xuduudaha waa la xiray fayraska dartiis. xaalad degdeg ah ayaa lagu dhawaaqay, dadkana waxaa loo sheegay inay guryahooda ku jiraan iyadoo loo ballan qaaday in gargaar uu ku soo socdo. waxaa cad in Tom uu gebi ahaanba daalan yahay oo uu ka dhammaaday dagaalka joogtada ah dartiis. wuxuu cunto ku soo laadlaadiyey geed maalintii ka horaysay kumana uusan cunin tan iyo markaas. gaajada ayaa dhibaysa. si kedis ah zombi ayaa jebinaya daaqadda RV-ga oo soo weeraraya laakiin Tom wuxuu ku guulaysanayaa inuu iska caabiyo isagoo isticmaalaya wax kasta oo gacantiisa soo gala. wuxuu ka qaadayaa cad alwaax ah alaabta guriga wuxuuna ku qodbayaa daaqadii jabtay si uu uga hortago zombiyada inay soo galaan. wuxuu isku dayayaa inuu caawimaad ka weydiisto raadiyaha laakiin ma jiro wax jawaab ah. wuxuu dib ugu fuulayaa saqafka sare wuxuuna aaga ku baarayaa qalabka aragga fog. ugu dambayntii wuxuu arkayaa Mira. ma foga meesha uu yaallo RV-gu, zombiyaduna weli ma aysan arkin. Tom wuxuu bilaabayaa inuu u diro calaamado isagoo isticmaalaya luuqadda Morse code isagoo isticmaalaya toosh waxayna ugu jawaabaysaa iftiinka muraayadaheeda iyadoo leh way nooshahay oo way fiican tahay laakiin aad bay u argagaxsan tahay. Tom wuxuu u sheegayaa inay meesha joogto laakiin Mira waxay go'aansanaysaa inay u soo dhaqaaqdo dhanka RV-ga. si kedis ah mid ka mid ah zombiyada ayaa arkay iyada, kooxdii oo dhanna waxay bilaabeen inay u ordaan dhankeeda. Tom ayaa ku qaylinaya gabadhiisa inay ordodo iyadoo isla markaasna uu ka soo boodayo RV-ga si uu dareenka dadka caabuqsan uga soo leexiyo Mira. zombiyadu dhab ahaan way soo jeestaan oo waxay u ordaan dhankiisa. Tom wuxuu ugu garaacayaa si kulul ulaha goolafka laakiin tiradoodu waa ay aad u badan tahay wuxuuna si degdeg ah dib ugu fuulayaa RV-ga. habeenkaas Tom wuxuu mar kale daarayaa raadiyaha isagoo si quus ah isugu dayaya inuu qof gaaro. si kedis ah aaladda ayaa soo saaraysa dhawaq siilaanyo ah oo dheer oo fiiqan. dhawaqa sare wuxuu soo jiidayaa dareenka zombiyada u dhow RV-ga. waxay bilaabayaan inay waashaan oo ay mar kale daaqadaha garaacaan. Tom wuxuu soo qabanayaa dube wuxuuna burburinayaa raadiyaha. dhawaaqii waa uu istaagayaa. wuxuu fuulayaa saqafka sare isagoo roob culus hoostiisa ah wuxuuna ku guulaysanayaa inuu iska caabiyo dhowr zombi. isagoo daalan Tom wuxuu soo jeedaa habeenka oo dhan isagoo ilaalinaya hoygiisa ku meel gaarka ah. dhanka kale zombi ayaa weli eryanaya Mira. way cararaysaa oo ku dhuumanaysaa meel godoon ah. subaxdii Tom wuxuu arkayaa wax naxdin leh. zombi ayaa haya jaakadii Mira. quusasho ayaa gebi ahaanba haysa isagoo ka baqaya waxa ugu xun in gabadhiisu ay u dhacday bahalada. murugo ayaa si buuxda gacanta ugu dhigaysa. kadib Tom ayaa hoos u degaya wuxuuna soo qabanayaa qorigiisa. waxaa ku harti uun hal xabad. wuxuu qoriga ku qabnayaa madaxiisa isagoo diyaar u ah inuu isdhiibo. laakiin xilligii ugu dambeeyey ma awoodo inuu riixo kiciyaha. wax ka mid ah ayaa ku adkaysanaya in Mira ay weli nooshahay iyo inay tahay inuu sii wado dagaalka. kadib Tom wuxuu weelal dhigayaa roobka si uu ururiyo biyo. wuxuu cabbaa biyaha roobka laakiin isagoo aan haysan cunto habboon wuu daciifayaa saacadba saacadda ka dambaysa. kadib wuxuu helayaa fikrad uu ku sameeyo dabin isagoo isticmaalaya muraayado jabay isagoo ku dhejinaya jajabka edhifka saqafka sare. hadda haddii zombi kasta uu isku dayo inuu kor u soo fuulo way goy doonaan oo dhici doonaan. si kedis ah Tom wuxuu arkayaa gaari si xawaare ah u socda jidka isagoo ay eryanayaan koox zombi ah.
wuxuu u ruxayaa si waali ah isagoo ugu yeeraya darawalka laakiin gaarigu wuxuu ku dhacayaa geed dadka caabuqsan ayaa gaariga dhinac kasta ka hareereeyay tom wuxuu og yahay inuu caawiyo wuxuu ka soo boodayaa RV-ga wuxuuna u ordayaa dhanka shilka isagoo mindi gacanta ku haysta isagoo jid ka dhex samaysanaya zombiyada wuxuu ku guulaysanayaa inuu gaaro gaariga oo uu darawalka ka soo saaro labadoodu waxay dib ugu ordayaan dhanka RV-ga tomna wuxuu kor u qaadayaa ninkii qariibka ahaa xilligan waa ay ammaan qabaan ninku wuxuu sheeganayaa inuu yahay sarkaal roondo ah wuxuuna keenayaa war xun dunidii oo dhan waxaa qabsaday zombiyo fowdo ayaa meel kasta taal dhammaan nidaamyadii xiriirkana waa ay maqan yihiin isagoo haya sawirka miira tom ayaa si rajo leh u weydiinaya haddii uu arkay iyada ninkii qariibka ahaa wuxuu leeyahay ma uusan arkin qofna tom ayaa u sheegaya inay tahay inay miira wada raadiyaan laakiin sarkaalku waa uu diidayaa wuxuu uga digayaa inay tahay wax aad u khatar badan oo zombiyadu ay u googoyn doonaan cadcad taa badalkeeda wuxuu soo jeedinayaa inay sameeyaan qorshe isagoo leh waxay u baahan yihiin xoog ay ku dagaalamaan sidaas darteed tom wuxuu siinayaa inta hartay ee cuntada ee ku jirta RV-ga wuxuuna sheegayaa in sahayda hartay ay ku yaalaan geed korkiis taas oo u muuqata wax qariib ku ah ninka tom ayaa mar kale ka baryaya inuu ka caawiyo helitaanka miira laakiin ninku si qabow ayuu mar kale u diidayaa kadibna wuxuu u muuqdaa inuu xoogaa jilcay isagoo ballanqaadaya inay raadin doonaan waxa ugu horreeya ee subaxnimada beri habeenkii inta uu martidu hurdo tom wuxuu baarayay aqoonsigiisa wuxuuna helayaa naxdinta noloshiisa ninkan waa beenaale ma aha sarkaal haba yaraatee waa uun tuug xaday aqoonsiga qof kale si kadis ah kaayinkii ayaa soo toosaya oo weeraraya tom dagaal ayaa dhex maraya iyaga tom wuxuu isku dayayaa inuu isdifaaco laakiin ninkii qariibka ahaa ayaa ka xoog badan wuxuu tom kaga dhufanayaa madaxa wax kastaana waxay isu beddelayaan madow markii uu tom soo toosay wuxuu isku arkay isagoo gacmo gashi ku xihan kaayinkii ayaa qarka u saaran inuu ka tuuro RV-ga dhexda kooxda zombiyada ah laakiin tom wuxuu si quus ah ugu dagaalamayaa noloshiisa wuxuu ku guulaysanayaa inuu hal gacan ka bixiyo gacmo gashiga daqiiqadda xigtana wuxuu gacmo gashigii ku dhejinayaa curcurka ninkii weeraray zombiyada ayaa qabanaya kaayinkii oo hoos u soo jiidaya iyagoo u soo jiidaya si aad u xoog badan oo gacantii ninka ay ka baxayso meesheedii tom wuxuu og yahay inuu baxsado isla markiiba wuxuu fuulayaa saqafka sare wuxuuna eegayaa buuraha fog wuxuu arkayaa qiiq qof ayaa dab halkaas ka shiday rajo ayaa u soo noqonaysa laga yaabaa inay tahay miira oo halkaas joogta habeenkaas wuxuu soo qabanayaa qoriga baaruudda ah wuxuu baytari ka qaadayaa RV-ga wuxuuna si fudud ugu ordayaa dhanka gaariga kooxdii dadka caabuqsan ahaa ayaa eryanaya markaasuu tom ugu boodayaa gudaha gaariga wuxuuna isku dayayaa inuu kiciyo markan mishiinku wuxuu u kici doonaa si xoog leh wuxuu ku dhufanayaa baasiinka wuxuuna u duulayaa xagga hore laakiin zombiyada ayaa gaariga kaga dhigan meel kasta daqiiqad gudaheed gaarigii wuxuu ku dhacayaa geed dadkii caabuqsanaana waxay hareeraynayaan tom waxay u muuqataa sidii dhammaadkii laakiin wuxuu arkayaa haan baasiin ah oo agtaal RV-ga fursad dambe wuxuu ku ridayaa qorigiisa baaruudda ah wuxuuna tooganayaa haantii baasiinka qarax weyn ayaa gilgilaya aaga wax kastaana dab ayay qabsanayaan zombiyaduna waxay ku gubanayaan jahannamada dhexdeeda si mucjiso ah tom ayaa badbaadaya markii subaxdii timid isagoo daalan oo nabaro leh wuxuu bilaabayaa inuu fuulo buurtii dhanka qiiqii uu arkay tallaabo kasta waa dhib laakiin wuu sii socdaa rajada helitaanka miira ayaa si joogto ah xagga hore ugu riixaysa ugu dambayntii wuxuu gaarayaa meeshii ugu sarraysay halkaasna way joogtaa miira iyadoo nool oo fiican farxad ayaa labadoodaba liqaysa kadib dhammaan naxdintii ay soo mareen waxay ugu dambayntii dib u midoobeen iyagoo ka tegaya dhammaan cabsida dagaalada iyo dhammaan xanuunkii hore tani waa dhammaadka filimkeena halkaas ayuu ku dhammaanaya tan iyo markaan ku kulmi doono filimka xiga waxaan idin leeyahay cimri dheer iyo caafimaad nabadgelyo